السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامجنا برنامج الله وحال كان يدين كسر دياريو. أنا هو إنجنير عبد العزيز محمد حسن. ما أنت برنامج وحقوق قادنا إن شاء الله تعالى. ولو حنكون تكون برنامجنا وحنكلم فاكشن قيسي كردون. أروح أوصل هذا لنا بيت إنفكشن. وحنكون جرمي user define function. user define function وحقوق بينا أفر كاتوجريسا وصو قابلين. أفر كاتوجريسا وصو قابلين وحيد كلا حاين. function له function aan lahayn wax return type iyo wax argument ah waxaan ugu soo hadalnaa cashirka kan ka horeeyay waxaan kaloo ku soo hadalnay function aan lahayn return type balse leh arguments maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah taala marka labadan programka ugu horeeyo waxa waaye waxaad qortaa program sameynayo laba number isku dhufanayo iyadoo la isticmaalayo function فرشكاس شروط باكو حري شرطي كو حين waxay tahay hal ahaado return type laakiin uusan lahan argument wax argument ah oo baasin hal ahaado return type soo labaad waxay tahay labaad tir waxaan u baahnaa inaan noo qorto program kaas oo laba tir isku qaybinayo inagoo isticmaalana function shardi ku xira asigana wuxuu tahay functionkaas hal ahaado return type sidoo kale argument ah loo baaso argument ah lahaado هذا البرنامج إن شاء الله تعالى ما تقاعدنا برنامج كورس يعني كبلاوينا مكورة برنامج كين الدفاع يعني سوق حسنينا نقدر على السكرين قرينا اوكي انا لو ودي فاكشن ان ku celino su'aasha si faafurina function ka shardigiisu waxa waa hal ahaado return type laakiin oo san lahayn argument okay function ko return type kiisu maxaa horto waxa noo diro waa in laba number ay isku dhufano numberka wuxuu soo celidana waa number data type kiisu waa integer marka wuxuu soo celinayo waa integer function declaration ayaa sameeynayna function name ka sheegayna function name kiisuna waa multiply magaca aragta u bixi kartaa laakiin waa anaga waxaan u baxsanay shaqada uu qabanayo multiply ah wax argument soo celinayo Soomaali fowda inta ku qori kartaa sidoo kale isagoo banaana ka tagi kartaa okay waxaan sameeynay function declaration ama function prototype okay waxaan sameynaynaa function definition saan u qeexno wuxuu function ka qaba lahayd function kan waxaan raacaynaa function declaration ka waxaan leenahay integer function name ko multiply ah wax oo parameter ama argument qaadan maayo okay saddex variable ah qabsanayna mid wuxuu noo qabanayaa tirooyinka user ko soo geliyo midna natiijada aan ku kaydsanayna abc aan iska dhaxno okay printf enter first number ku horeeyo soo geli scan f percentage d ampersand abo kuwara nala qabtay printf enter second number scan f d ampersand b okay si maxaan qabanaysaa si waxaan qaban laba lambar oo nala soo geliyo ma si waxaan ku shubanaynaa a times b si waxaan haysaa a lagu dhuftay b user ku wuxuu soo geliyay tusaale 5 oo soo geliyay intana wuxuu soo geliyay 5 laba ku dhufo 10 ka waxaan ugu shubay c waxaan haysaa soma return c waa haysaa integer kan wuxuu hayaa markaas multiply aan wuxuu noo hayaa function kan inta waxaa noogu jirto multiply lagu soo soma return type ko hayo celinayo maxaa waay c ayuu celinaa c na wuxuu noo haysaa 5 laba ku dhufo tusaale 10 kaas ayuu haysaa 10 kaas ayaa la celinaya soma okay
aanu sameynaynaa function calling. functionka magaciisa functionka wuxuu soo celinayaa aan marka hore waxaan sameynaynaa variable aan ku shubanayno wuxuu soo celinaya waxaan leeyahay result aan iska dhaxno. okay function resultiga ha igu shub resultiga wuxuu shubayaa functionkan muxuu yahay marka multiply functionkan wuxuu ku hayaa integer oo ah labadan tiro la soo geliyo la isku dhafto soo ma. okay iyo marka daabac marka wuxuu yahay resultiga wixii inta ku jiro waxa ku shubtaa resultiga. hadda waxaan daabacaynaa marka resultigaas waxaan ka rabnaa inuu noo soo bandhigo waxa labadan ay soo geliso. tusaale inta 5 soo geliyay intana 2 soo geliyay ama 5 iyo 3 iska dhana 15 labadaas isku dhufo waa 15 soo ma. waxay ugu shubtaa return c celi multiply wuxuu qaadanayaa data oo ah tabekiisa waa integer. multiply waxa ku jirto 15 ama 10 aan dhaxno 15 ka waxaan ugu shubay resultiga soo ma. resultigaas oo 15 noogu shubay joogeenaya marka resultiga 15 noogu shubay waa daawacayna. okay aan daawacna marka hore waan seefina waa kan resultiga 15 lagu shubay belintii baan daawacna marka waa seefina marka hore. with return type iska dhayaa return type intaan halkan iska saxno. okay first number soo geli waxaan soo gelinay 5 second number soo geli 4 5 ku dhuf meeqa waxa rabnaa inuu soo saaro 20 saa u jeedaan 20 ayuu soo saaray. hadda waa kan oo qurxin karnaa inta waxaan ka dhigi karnaa result is 20 the result is 20. okay waxyaala qurxinin arayno waxaan soo saaro. hadda waxaan leenahay 3 4 12 the result is 12. waxaan ka baxnay function leh return type no argument. waxaan tegaynaa markaan function leh argument iyo return type labada isku leh. okay kan la ka sameeynayna isla programka. hadda function kan wuxuu leeyahay bis argument wax return type ma la soo ma. aan sameeynayna return type soo ma. return type oo sameeynayna inta waxaan leenahay laba argument ha qaato. argument inta ka qaadanayo joojiyo laba argument ha qaataan leenahay. okay laba argument oo baasayna inta a comma inta b tamam kateker zibis iskale laba argument oo qaadanayna. okay waxaan sameynaynaa markaan visualization ka taagsaynayna ama waxaan sameey kartaa inta kuwaan inta u soo reebta labadaas waa ku furan tahay. waxaan sameey kartaa inaa inta tirada ka siiso iyo waxa kale ku furan inta inaa sameyso a comma b inaa dhahdo kadib inta toos u siiso result kadib asaas dhahdo okay a e b inta marka waxa u baasaysaa a comma b. okay wax kale ma sameyn. waxaan sameeyay meeshaan
inta wixii uu jira la inta kii function kan waxa loo yaqaanaa function wuxuu leeyahay marka waxaan dhahnay function ka ha lahaado return type sidoo kale ha lahaado argument loo baasayo okay function ki marka wacayo laba argument oo baasayo argument goor maxaa waa aeb inta uu jiro soma waa kan wuxuu soo geliyo inta uu keedina wuxuu ii soo geliyo 10 b na 2 marka uu soo geliyo toos wuxuu aadaa halkan operationka marka function inta waxa ka dhacay operationka kaliya bas okay wuxuu ku jiro waxa lagu koobi gareynaa inta meeqa ku jirta user ka saddex soo geliyo saddex inta x xataa waa dhigi kartaa qasama bs inay noqoto x y waa dhigi kartaa x y alla soo faanta bas okay user ka shan soo geliyo shan inta lagu baasa okay b na wuxuu soo geliyo 4 inta waxa lagu baasa 4 shan iyo 4 soma okay shan 4 ku dhuf meeqa waa 20 ki inta lagu shubaya c waxay haysaa 20 return 20 soo 20 waxa lagu shubaa multiply meeqa haysaa 20 okay multiply soo integer maaha inta baa una qanayna multiply labadan la isku dhufto waxay noqotay 20 ka waxa lagu shubaa resultiga la daawacay waxay noqonaysaa 20 waxa lagu dhahay aeb inta laga meeqan aniga inta bedelna maadaama bedelna horba x y y okay hadaan fiirinayna 4 lagu dhuftay 5 the result is 20 okay waan ka bedelaynaa 4 iyo 5 maalin kasta maxaa nagu imtixaananay okay 5 iyo 8 aan ka dhigno waa 40 soo ma the result is 40 waa programkii labaad ayagana intaas ayuu noo egyahay